بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشا برنامجكن ama ku xiran YouTube channel-kaygan oo mahadnaqaya dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee daawanayo oo mahadnaqaya. Maalintii ugu dambeysay waxaynu ka hadalnay inaynu casharkii koobaad kaga soo hadalnay inaynu abuurnay sida loo abuuro company ama sida loo dhiso shirkad ayaanu kaga soo hadalnay. Waxaynu abuurnay shirkadda ahayd casharkii koobaad ku soo aragnay sida loo abuuray shirkadaas oo aynu weeyaan soo sheegnay oo bixinay Somali Community. maanta waxaynu doonaynaa bal inaynu casharka labaad sharaxno oo aynu u galno programka gudaha u galno. waxaynu bilaabaynaa maanta sida loo diiwaan geliyo qof customer ama qof macmiil ah, sida loo diiwaan geliyo, sida magaciisa loo abuuro ayaynu baranaynaa. waxay kala baranaynaa sida loo abuuro qof vendor ah ama qof lacag ugu leh sida loo diiwaan geliyo. waxay kala baranaynaa maanta aynu doonaynaa inaynu tuso chart of account wuxuu yahay iyo qaybaha uu ka kooban yahay. saddexdaas aynu ka hadlaynaa qodobka koobaad haddii aynu tagno aynu cursor-ka ku dhufano halkay ku taalo customers markaynu ku dhufano waxaynu tegaynaa halkay ku taalo customer center markaynu tagno waxaynu ka dooranaynaa halkay ku taalo new customer and jobs markaynu ka doorno waxaynu ku dhufanaynaa new customer waxaynu ku dhufano qofkii customerka cusbaa ka magaciisa qorayna. waxaynu u bixinaynaa tusaale ahaan caps loo gaadaaraysa waxaad u bixinaysaa Faarax Axmed waa tusaale. Faarax Axmed markaad timaado mar labaad magaca waad copy garaynaysaa. markaad copy garayso waxaad ku soo paste garaysanaysaa halka ah invoice bill ama waxaad ku paste garaysan kartaa halka ah company name. hadaad labada waad ku paste garaystaaba hodhow toole waynu arkaynaa casharada dambe. wuxuu ka caawinayaa qofka markaad statement-giisa aad u daawacayso oo lacagta kugu leeyahay aad u daawacayso bishii inuu qofkii oo magaciisa biil la socdo uu tago. hadii kale waxay noqonaysaa inaad qalin ku dul qorto. markaas halkaas aynu ku paste garaynaynaa okay baan odhanaynaa. okay markaynu nahna waxaanu arkaynaa halkaas customer inuu soo galay qofkii Faarax Axmed wakaas lacagta lagu leeyahay waa 0 halkaas uu soo galay. marka waxa weeyaan kaas waa customerkiisa aynu abuurayno oo waxa weeyaan waxaanu ku celiyo waxaad tagaysaa waan ku customer waxaad ku dhufanaysaa customer center waxaad ka sii doonaysaa new customer qofkaad bixinaysaa informationkiisa. halkaas waxa weeyaan sida qof customer oo cusub loo abuuro marka la isticmaalayo QuickBook program. qofka labaad aynu doonayno diiwaan gelino waxa weeyaan qof inaga lacag inagu leh vendor macnaheedu waxa weeyaan dadka adiga lacagta kugu leh. dadka adigu aad lacagta ku leedahayna waxa la yiraahdaa customers. waaye vendor markaad tagtid click C waxaad ku dhufataa vendor center markaad ku dhufato waxaad imaanaysaa halkay ku taalo new vendor markaad ku dhufato waxaad imaanaysaa new vendor ku dhufanaysaa halka dad qofkii lacagta kugu lahaa ayaad gelinaysaa magaciisa lacagta sida loo gelinayo iyo sida looga qabsanayo iibka wuxuu ka iibiyo waxaas oo dhan waan soo arkaynaa cashareedana dambe aynu ku dhiganaynaa. maanta waxa weeyaan bal qofka sida loo abuuro marka hore inaynu barano. waaye qofka lacagta inagu leeyahay waxaad ka soo qaadaa Faadumo Cigaal baan ka soo qaadaynaa. iyadana sidii la mid ah waxaynu ku soo paste garaynayna inaynu soo copy garayno halkan bas ka paste garay waa istamid halkaas aan ku paste garaynaynaa okay waan siinaa. iyadana wata Faadumo Cigaal way imka way soo gashay balance-geeduna waa 0 balance way noo samaysan tahay magaceedii. waayahay waxaynu doonaynaa daba chart of account waa maxay chart of account waxaynu tegaynaa halka ay ku taalo list waxaynu dooranaynaa chart of account markaynu doorano waxaynu arkaynaa akoonadii oo soo baxay. waxa ugu horeeya accumulation, depreciation, furniture and equipment, payroll, liability baa ku xigta. iminka akoonadii lambar ma laha lambaris baynu sameeynaa. lambariska qaabka akoonada lagu sameeyaa qaabka akoonada lambariska lagu sameeyaa edit baa la tagaa. edit marka la tago preference baa la tagaa. preference marka la tago waxa la tagaa accounting marka tagtid waxaad tagaysaa company preference markaad ku dhufatid halkaasaad taxaysaa use account numbers baa akoonada lambar bal u samee. waayahay okay baad oranaysaa
marka tiraahid okay waad aragtaa lambarada soo wada galay halkaa markii hore halkaas lambar ma lahayn waxa weeyaan lambarada soo wada galay haddaba waxa weeyaan accounting-ku wuxuu isticmaalaa numbers iminka wixii waxa weeyaan waxaan ka qaybinaynaa dhowr qaybood waxa asset-ka waxaan ka bilaabaynaa one bay ka bilaabmaan iminka 1500 1700 ilaa inta labada laga soo gaarayo waxaas oo numbers waxa leh asset wixii ah ama cash ha noqoto ama inventory ha noqoto ama fixed asset ha noqoto iyaga leh number 2 marka timaado waa liability waa number 2 iska leh waa ah deynta lagugu leeyahay liability waa ah deynta lagugu leeyahay adiga ayaa imanaysa marka timaado number 3 waxa imanaya hantida qofka meesha leh open balance iyo hantida ayaa imanaysa meesha ama capitalka lagu aasaasay meesha number 4 waxa imanaya sales macnaheedu waa income akoonada income ka number 4 ka bilaabanaya number 5 waxa ka bilaabanaya akoonada cost of goods sold alaabta la faheedi marka alaabta la faheedi macnaheedu waxa weeyaan alaabta la faheedi iminka waxaad soo iibsatay shay computer baad soo iibsatay computerka waxa laga soo siiyay $200 waxaad siisay $300 $200 akoonka lagu xisaabinayo waxa la dhahaa cost of goods sold oo wax weyn alaabta la fi laga soo siiyay $300 na akoonka lagu xisaabinayo waxa la yiraahdaa sales oo wax ah income-ka kusoo galay haddaynu halkaa dhaafno akoonada waxa ka bilaabanaysa 6 baa ka bilaabanaysa 6 waa experts hada saad u aragtaan advertisement experts marka 5 akoon bay ka kooban yihiin 1 2 3 4 5 6 marka 1 waxaynu waxa iska leh asset labana waxa iska leh asset waxa weeyaan hantida meesha ku yaala hantida meesha ku taala asset oo dhan liability iyo qaar aad leedahay isku dar waxa hanti meesha taala meherta dhex taala ayaa lahaa asset liability waxa la yiraahdaa hantida lagu leeyahay adiga ee shirkadada lagu leeyahay capitalkuna waa hantidii aad ku aasaastay meesha aad ku bilowday ama investment aad ku bilowday markaas waxa weeyaan asna waxaan eegaynaa shanta akoon iyo qaabka u shaqeeyaan sida loo bedelayo waxaas waxa weeyaan casharadeen dambe aynu ku eegi doonaa casharka labaad maanta intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa hadii aynu ku celiyo mar labaad customer baan laga tagaa marka qof la sameeynayo customer waxaad kale ka tagi kartaa meel labaad oo ah halkaas ay ku taala customer dadka customer ku dhufatid isla halka wax ku soo baxaysa waxaad raadinaysaa new customer marka tiraahidina new baad oranaysaa halkii baad qofkii ka soo abuuraysaa waad soo gelinaysaa informationkiisi halkan hadii aad dheeraad u baahan tahay numberskiisa iyo meeshu ka shaqeeyo iyo waxa hadaad u baahan tahay waad gelin kartaa payment meterka qaabku u bixinayo lacagta iyo waxa iyo akoonada ku bixinayo waad gelin kartaa hadii aad u baahan tahay halkan sales tax hadii jirto waad gelin kartaa additional information ka wax weeyaan information dheeraad hadaad ku bixinayso waad gelin kartaa wuxuu ka shaqeeyo iyo meeshu ka shaqeeyo waad gelin kartaa intaas ayaan ku dhaafaynaa labada meelood baa laga tagaa inaad xagga sare ee toolbarka aad ka doorato customer iyo inaad halka shaashada ka doorato customer vendor laftigeeda waxa weeyaan halkaas ayaan ka tagnay waxa kale laga tagi karaa halkaas waxa weeyaan iyadana vendor waa laga dooran karaa halkan baa ku soo baxaysa new vendor kiba tagaysa waad abuuraysaa waxa weeyaan informationkiisa soo bixinaysa asagana waxa weeyaan halkaas aad ku soo bixinaysa akoonadiisa wixiisaba waad abuuraysaa chart of account waxaynu ka tagnay halka baynu ka tagnay list waan ka tagnay marka hore tan chart of account meesha kale laga tagi karaa waa halka waxaad tagaysaa halka ku taala chart of account marka tagtid waad ku dhufanaysaa halkii weena keenaya akoonadii sidii ayay inoogu soo baxayaan iyaguna waxa weeyaan casharkaas maanta waa casharkii labaad ayaan mar labaad ku celiyo waxaynu ku baranay sida qof customer ah loo abuuro sida qof vendor ah lacag loo abuuro iyo sida chart of account-ka numberska loo soo geliyo iyagoo aan sharaxnay qaybaha ay ka kooban yihiin oo aan 5 akoon u kala qaybinay daawasho wacan walaalaha waxa weeyaan ayaan daawanaya videogan ee Soomaalida waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijkan subscribe gareeyaan oo ay noo saaraan subscribe taas waxay ka caawinaysaa cashar kasta oo aan soo geliyo in automatically notification uu ku soo diro oo markaba ku dhaho casharkaas ayaa ay soo gelisay Somali Veterinary ay soo gelisay markaas wax weeyaan si fudud ayaad u ogaanaysaa cashar kasta oo aan soo gelina wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh